okay ninkan dadka in laga qabto waaye waxaan qiyaasaa ninkan qofka uu yahay si fiican ayaa u taqaanaan ninkan magaciisa waxaa la dhahaa David Goggins caan ayuu ka yahay sportiga khaasatan markay timaado orodka dad badan waxay xasuustaan 2005 ninkan wuxuu orod uga baxay magaalada San Francisco oo wuxuu orod ku tagay New York ninkan uu San Francisco ka ordo ilaa New York waxay ku qaadatay 65 maalmood 65taas maalmood hal maalin oo break ah ma uusan qaadan oo waxay ahayd 65 maalin oo isku xigto 65taas maalmood ninkan wuxuu orday 5000 oo kilomitir ninkan asiga ka hor ma la aaminsaneen bin aadan inuu suubin karo 24 saac gudaheed 4000 oo pull up ninkan recordkaas wuu jibiyay 24 saac gudaheed waxa uu suubiyay 4030 pull up inkastoo hadda recordkaas dad badan ay jabiyeen ninkan wuxuu kala caan ka yahay dhiirigelinta hadaladiisa dhiirigelinta dad badan ayaa dhageystaan ninkan wuxuu qoray 2 buug oo dad badan ay akhristeen luqado badanna lagu turjumay waxa laga yaabaa qaar badan oo fiidiyogan fiirsanayo buugagtaas ina akhrisateen ama ina dhageysateen marka hadda su'aasha isweydiiska mudan waxay tahay ninkan 50 sano ayuu jiraa haddana saan ayuu u yaalaa ninkan maalin kaste markay u yar tahay 2 saac ayuu ordaa oo hal maalin ma nasto jimkan wuxuu aadaa ama birqaadis wuxuu suubiyaa weegii 3 ilaa 4 jeer marka adiga fiidiyogan fiirsanayo ninkan sirtiisa maxay tahay ninkan natural miya mise sir u qarsan ayaa jiro inta fiidiyo guda galin waxa si sharaf ah kaaga codsanaa bal adiga meeqa sana jirtaa meeqa kilomitirna waa ordi kartaa commentiga igu soo qor marka ninkan sirtiisa intaana ka hadlin waxa fiican wax yar inaan ka fahanno taariikhdiisa ninkan markuu yaraa wuxuu ahaa ilmahan qabo ADHD markuu yaraa wuxuu sheegay ganacsi aabihii iska leeyahay inuu ka shaqeyn jiray aabihii uu ku qasbi jiray habeenkii ganacsigaas waqti dheer inuu ka shaqeeyo ninka wuxuu kaloo sheegay aabihii inuusan ahaan jirin qof fiican oo asiga iyo hooyadiisba uu garaaci jiray ninka wuxuu kaloo sheegay markuu yaraa wuxuu deganaa xaafad cadaanka ay ku badan yihiin xaafadaas cadaanka deganna cunsuriyad badan uu kala kulmi jiray dhibkaas badan oo yaraantiisii haystay waxay u keeneen inay ku dhacaan xanuun dhanka maskaxda ah taasoo markii dambena keentay inuu wax baran waayo marka ninkan maadaama yaraantiisii uusan ahayn qof waxbarashada ku fiicnaa markuu weynaaday wuxuu ka shaqeyn jiray shaqooyinkan ah kuwa dhilqaha iyo baranbarada guryaha ka buufiyo marka soo asiga sheegay ninkan maadaama uusan ku qanacsaneen shaqadii uu ka shaqeynayay naftiisana uu ku qanacsaneen taas waxay keentay inuu ku dhaco depression waqtigu wuxuu isku dhaafsiin jiray raashin taasoo markii dambe u keentay inuu aad u cayilo oo miisaankiisa wuxuu gaaray 136 kiilo ninkan intuusan gaarin 30 sano wuxuu damcay inuu ka mid noqdo ciidamada Mareykanka ee badda qaybta loo yaqaano Navy Sealka inaad ka mid noqotid waxaa jiro shuruudo la iska rabo tusaale ahaan qofka David Goggins dhererkiisa oo kale leh waxaa looga baahan yahay inuu ahaado ugu badnaan 90 kiilo maadaama ninkan waqtigaas uu ahaa qof aad u cayilan suurtagal ma aysan u noqon inuu ka mid noqdo ciidamadii uu rabay danta waxay ku qasabtay miisaan badan inuu iska rido ninkan 3 bilood gudaheed wuxuu iska riday 46 kiilo dabcan bin aadanka 46 kiilo 3 bilood gudaheed inuu iska rido caafimaad maahan sababtoo miisaankaas ka dhacayo murqo badanna way ka raacayaan oo 46 kiilo markuu iska rido jirkiisa si qurux badan ma uusan ku soo bixin ninkan markuu miisaanka iska ridaayay wuxuu suubinayay raashinka dhan ayuu iska jaray oo maalintii oo dhan wuxuu cunayay 800 oo kilocalories cardio badanna wuu suubinayay ugu dambeyntii wax walba uu suubinayay sax iyo khalad waxay u keeneen miisaankii uu rabay inuu iska rido markuu miisaankii laga rabayna uu gaaro waxa suurtagal u noqotay inuu ka mid noqdo ciidamadii uu rabay marka ninkan waxyaabaha yaabka leh uu suubiyay waxa kamid ah asiga ka hor ma la aaminsaneen bin aadan inuu suubin karo 24 saac gudaheed 4000 oo pull up ninka 24 saac gudaheed wuxuu suubiyay 4030 pull ups marka ninkan waxyaabo badan oo yaab leh ayuu suubiyay waxyaabaha yaabka leh uu ninkan suubiyay waxa kamid ah 5000 oo kilomitir ayuu wuxuu ku orday 65 maalmood asoo hal maalin nasan waxyaabaha kale oo yaabka leh uu suubiyay waxay tahay 160 kilomitir ayuu ninkan wuxuu ku orday 19 saacadood asoo hal mar nasan waxyaabaha kale oo yaab kale uu ninkan suubiyay
waxaa ka mid ah 386 kilomitir ayuu wuxuu ku orday 63 saacadood. waxyaabaha kale oo yaab kale ninkan suubiyey waxaa ka mid ah 8 weekend isku xigta ayuu weekend walbo wuxuu ordayay 160 kilomitir asoo hal weekend nasan. marka ninkan dad badan ayuu ka yaabiyey waxyaabo badan oo isdhahayay lama suubin karana wuu suubiyey. hadda su'aasha isweydiiska mudan waxay tahay ninkan 50 sano jira saan uu eg yahay. maalin walbo markay u yar tahay 2 saac ayuu ordaa. hal maalin ma nasto. jimka markay timaadana 3 ilaa 4 maalin ayuu aadaa. marka ninkan natural miya? runtii dad badan shaki ay gelinayaan ninkan natural inuu yahay. waa ogahay markaa maqashid ninkan natural ma ahan waxaa la soo boodaysaa ninkan jirkiisa marka aad fiirisid murqo waaweyn oo sida bodybuilderka oo kale ma lahan. markaas adigu waxaa automatic ka dhacayso inuusan ahayn natural. laakiin su'aasha la isweydiinayo taas ma ahan. su'aal kale meeshan ku jirto tartiib si fiican u dhageyso. ninkan waxyaabaha uu suubinayo bini'aadamka markuu suubiyo wuxuu u baahan yahay jirkiisa inuu nasto. marka su'aasha la isweydiinayo waxay tahay ninkan jirkiisa goormuu recovery suubiya? qofka bini'aadamka waxyaabaha ninkan suubinayo kale marka uu suubiyo khaasatan da'da uu jiro waxyaabaha uu suubinayo kale marka uu suubiyo waxaa qasab ah jirka nasasho inuu helo si uu suubiyo waxyaabaha kale ee soo socda. laakiin jirka hadduusan nasan maxaa imaanayo? qofkii wixii inuu suubin waayo. laakiin ninkan hal maalin ma nasto. maalin kasta wixii ayuu ku celceliyaa. mararka qaarkood waxyaaba extreme ayuu suubiyaa. taasaa waxay keenaysaa dadka inay shaki geliyaan. ani shakhsiyan ma aaminsani ninkan inuu isticmaalo wax steroid ah. laakiin waxaan aaminsanahay inuu isticmaalo wax ka caawinayo jirkiisa si sahlan recovery inuu ku suubiyo. ani waxaan aaminsanahay David Goggins inuu isticmaalo peptides. peptideska steroid ma ahan laakiin waxay ka caawinayaan markaa isticmaashid jirkaaga si sahlan recovery inuu ku suubiyo. su'aashan asiga xataa dad badan way weydiiyaan markasta wuxuu dhahaa diyaaran u ahay testi in laga qaado. laakiin waxay tahay testiga marka laga qaado peptide inuu isticmaalay testiga ma ka soo baxayso. peptide steroid ma aha laakiin peptide markaa isticmaashid macnaheeda ma ahan natural inaad tahay. marka ani 100% caddayn ma hayo laakiin waxaan aaminsanahay inay jirto ninkan sir u qarsan. 100% ani waxaan aaminsanahay caddayn ma hayo laakiin ninkan inuu isticmaalo peptides. dad iga fikir duwan way jiraan. dad waxaa jiro aaminsan ninkan wixiisa genetics inay yihiin oo jirkiisa daalka intaas leeg xanuunka intaas leeg uu adkeysan karo. oo dadkaas waxay aaminsan yihiin daalka iyo xanuunka ninkan dopamine inuu ka helo. inay saxsan yihiinna waa laga yaabaa. bal adi groupkee ku jirtaa? ma aaminsan tahay ninkan sir u qarsan inay jirto mise waxaa aaminsan tahay ninkan wax kasta uu suubiyo 100% si natural ah ayuu u suubiyaa? bal commentiga igu soo qor. asxaabta video inta ka bixin sa arkaysiin gadaasheeda waxaa ka muuqdo supplements badan oo kala duwan. adiga videogan fiirsanayo hadda u baahan tahay protein, creatine, pre-workout wax walba u baahan tahay waan hayna. waxaa ka soo dalban kartaa dukaankeena, website-keena waa kana si sahlan ayaa gurigaaga lagugu keenaa haddii aad Yurub joogtid. dhib ma lahan hadda lacag haysan lacagta waxaa iska bixin kartaa 30 bari kadib. waxaan isticmaalnaa Klarna waddanka aad joogtid. haddii Klarna ka shaqeynayso Klarna ku qaadan kartaa 30 bari kadib iyadoo 1 shilin oo riba ah aysan ku korina lacagta waa iska bixin kartaa. maxaa sugaysiin? hadda wax u baahan tihiin website-kan ka soo dalbada si sahlan ayaa gurigiina la idinkugu keenaa. aad iyo aad u mahadsan tihiin daawashada videogan daawateen. waxaan noo balanaa videogan ku xigo. balanteen waa caafimaad iyo muruq.